Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabay. Maanta waxaan wadaa oo layga codsaday sheeko carruureed inaan soo jeediyo. Waxaan si gaar ah ula hadlayaa carruurta yararka. Soo dhawaada. Carruuray maanta waxaynu haynaa sheeko. Sheekadaasna waxay ka oranaysaa Lax iyo Ri. Beri baa waxaa wada deganaa Lax iyo Ri. Waxa ayna wada lahayeen guri qurux badan. Maalin ayaa ay ridii iyadoo gurigeeda u socota. Waxay aragtay mas aqalkii ka soo baxaya. Ridii waa ay carartay iyadoo naxsan. Markaas ay ku tiri Laxdii, waxaan arkay mas aqalkeena ka soo baxaya. Laxdii baa tiri, itus maska. Markaas ayaa ay israaceen si ay maska u soo arkaan. Waxay arkeen maskii oo guriga albaabkiisa ama ilinkiisa fadhiya oo raba wixii guriga soo galaa inuu cuno. Dabadeedna waa ay ka carareen gurigoodii. Waa gurigii ay keligiis lahaayeen. Waxay u tageen daanyeer dhex jooga beer moos ah. Markaas ayaa ay ku yiraahdeen, waxaanu u baahanahay cunto, biyo iyo guri aanu seexano. Daanyeerkii markii ay u sheegeen dhibaatada ku dhacday, aad ayaa uga naxay. Waxaana u keenay cunto iyo biyo. Markii ay cuntadii dhameeyeen, waxa uu geeyay guri qurux badan oo ka sameeyay caleenta mooska. Waanay u mahadceliyeen soo dhaweynta ballaaran ee uu u fidiyay. Daanyeerkii waxa uu yiri, gurigeen aad caawa seexanaysaan idinka ayaa iska leh laga bilaabo caawa. Dabadeedna waxa uu weydiistay in ay la joogaan si ay isaga weheshadaanin wixii soo weerara. Sidaas ayaa ayna saddexdoodii ku saaxiibeen.